dadka maanta wada duqsi arlig ba dadka degan dadka Scotland ayaa ka qayb madaxweynaha wadanka Mareykanka waxay soo askar qordareen alla bariya kan jacayl daba barashada lama ba kala garanayo cadaan iyo xirnaqdan هيا الكذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودياشا إذا قيمة يا قدرنت أن نجمد ونكسر دواده الله حتقصيني توي كجهاد ليين دجالك كواحدة داعش ما جامعة عرب تايا شير مدوي تقصي اسمه مقطع xiritaankan ku yar noqdaa xiritaankan ku yar noqonaya iga raali noqo intaas waxay nagu dhamaaday guud ahaan baa wixii dalka gudihiisa iyo dibadda aan idin soo tabinaynay waxaan jacaylkuna waan tabayn rogragato barino ku soo rido rayda wada kale karam naga bilowni caadiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جودهم بأخيار تيدا كلا قد سنة وانا قام دوري أخيار تيدا كلا قد سنة طبعا هو ذا نقل سعوتها يدي لهانتي طبعا انت تدكسها في ميرنا وربحي تلك قدي سادة على ذا دوني ذا يقاردا كلا قد سنة نقل سوقاري وامنتنا كلا سعوتها استوديو تلفزيون كمدة حبناني بشتي في كل قداء عاصمة مقالة هرقيسة توضي لوركنا واحد لسه حسين يواني وهني جيب عبد الله علاده يجودها بهول وذينا دبرشتي فويد كذا فيا سيدا يا السلام عليكم ورحمة الله من الله تعالى وبركاته أنا طاولنا أي نغا مسيدة تحققوا ما حد ولا لكال الله ولا لكال هرتك علي الله أبغاك مغذي مدري أبغاك مغذي اللهم صل على كلها فات بسم الله عبد الرزاق هيان خسارة isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay dooxa khuluuq oo qaaday laba gaadhi oo kala ah nooca loo yaqaan raaxada iyo xamuulka raaxada iyo xamuulka marka la raado waxa la moodiyaa isku dhagsan gabadhida raaxada iyo xamuulka raaxada taqaan midan waxa karinta karamta xasan xamuulka ma taqaan gabadhida buura خسارة isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay dooxa khuluuq oo qaaday laba gaadhi oo astaghfirullah nima naga deesid ka mar baan niriye khuluuq qaasi waxaas balay aan ka fikrana waxayba kulanti wacan oo wanaagsan dhamaan baa khiyaarta hawada naga daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo adduunweynaha idinka haynay habeenkan caawa oo aad ka daawanaysaan Bulsha TV maalin waxaan daawaynay xaladaadka baalka TV-ga qaranka waa raaxay taqsiga lagu saliday
الله عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن هل كان هو تلفزيون كم مدح برنامج بولشة تي في حارنتي سكوات مجال هرجيسا وأنا هذا هايو كلا يدين كسوت بنوحي وردل كجوديه سيد بد أحبتها تقصي الدلبة أنكم نقضى wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiiglihii geystay dhagartii lagu khaarijiyay taliyihii degmada Xaaji Saalax ee gobolka Daadmareed wasiirka gudaha nagaam warkii baan ku jirnaa raafayar baalka maraysa nagaam dide wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday maantaas naga reeb ra'iisul wasaaraha dalka Yunlak Shirawatra balmaga gudoomiyaasha golaha guurtida baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta gudoomiyaasha labada gole baarlamaan oo maalmihii ugu dambeeyay khilaafkan ka tag wardanaga jooji sheekadan xamaasadda ka sheekaysan shit sidaad u qortan ma akhriyayna shiraad ma akhriya man saasa ka qornaa la ilaa oo maalmihii ugu dambeeyay khilaafkan ka dhex taagnaa war maxaa khilaafkooda nigaysaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شباب سعدي هيا ارتمانت waxay saxlaantan dalkaasi bri madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Barack Hussein Obama ayaa waxa uu gudoonsiyay 16 qof oo ku dhashay wafdi ballaadhan uu hogaaminayo safiirka wadankaasi wafdi ballaadhan uu hogaaminayo safiirka dalka Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho caasimadda dalka magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in safarkiisan uu ku qotomo boos kale buug dhawaan lagu soo bandhigay jaamacadaha Camuud iyo Hargeysa ayaa noqday mid bulshada si weyn buug dhawaan lagu soo bandhigay jaamacadaha Camuud iyo Hargeysa ayaa noqday buug si weyn bulshada u dhex qaada hadal hayskiisuna uu batay xukuumadda wadada wararka kale aan habeenkan caawa daawadayaal idin haynana waxa kamid ah akhyaarteeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta naga mudan hawada nagala socdow halkan ayaa waxa ku dhintay qarax ballaadhan oo ka dhacay wadanka Afghanistan ayaa waxa ku dhintay madaxii hay'adda lacagta adduunka ee IMF ee wadankaasi kuwaasi daawadayaal
kuwaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon iminkana waxa u diyaar garowdaan qodobadaasi oo faahfaahsan antaasi kaga soo laabto waxa kale oo inoogu xigsiinaya daawadayaal caweysankeenan caawa ah aan xubin iyadana uu soo dalbaday waa hees uu soo dalbaday caawa ma wiilashay badan baan idhaahdaa waxa la yiraahdaa Maxamed Ismaaciil buu igu yiri ayaa la yiraahdaa heestan ayaan ka dalbanayaa ii soo daa waxaan leenahay hees asta soo dalbatay waan ku ciyaarnaa insha Allah waan ku sii deynaa heesta